bismillaahi raxmaani raxiim waxaanu wanaagsan khiyaarta hawada iga daawanaysa ku soo dhawaada wararkii Soomaalida kuwoodii ugu dambeeyay wadahadahan oo kale ka daawataan beejin muqal wareedka intuu socon hadduu eebweyn macluumaadka aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah Muqdisho oo caawa gelaysa xaalad aan caadi ahayn oo koronto iyo internet la'aan ah intaan ku soo gudbin qodobkaas faahfaahsan fadlan muuqaalka leega saar oo iska share garay aynu ku bilownay saaxiibayaal magaalada Muqdisho ayaa caawa gali doonta saacadaha soo socda koronto iyo internet la'aan xilli ay taagan tahay xiisada siyaasadeed u dhaxaysa hoggaanka dawladda iyo mucaaradka waa sida warka loo dhigay saaxiibayaal sida ay shaaciyeen shirkadaha korontada ee Beko iyo isgaarsiinta Hormuud ayaa caawa waxa saameyn doona ayaa la yiri hawlgal farsamo oo ay sameyn doontaan labada shirkadood adeegyada korontada iyo internetka oo gabi ahaanba la weyn doono shirkadda Hormuud iyo Beko ayaa ogeysiis soo saaray ay ku wargelinayaan shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo arrintan soo socota labadan shirkadood ayaa sheegay in hawlgal cilad baaris ah iyo dayactir farsamo ay bilaaban doonaan kowda habeenimo waxayna socon doonaan ilaa iyo laga gaaro 4 am sida ku xusan ogeysiisyada shirkadu ay soo direen ee la xiriira hagaajinta iyo habsami u socodka adeegyada ay bixiyaan labadan shirkadood si loo yareeyo cilada imaan karta mustaqbalka waa sida warka loo dhigay saaxiibayaal Beko iyo Hormuud ayaa ah shirkado gaar loo leeyahay kana dalbaday in ay dul qaataan hakadka ku imaan doona oo ku meel gaar ah sida ay sheegaan korontada iyo internetka iyaga oo xusay in talaabadan ay muhiim u tahay tayeynta adeegyada waa sida warka loo dhigay saaxiibayaal waxyaalada dambe ka soo cusbanada muuqaalada dambe ay ku daawan doontaan fadlan muuqaalka leega saar share garay